Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada channelka. Waxaan sii wadi doonaa cashirkeena imtixaanaha ahaa. Een, waxaan creatinay saad ogeydeen exercise 2.1 folder and also waxaan creatinay exercise 2.2 oo install window 10. Window 10 oo kanaad hadda arkaysaan window 10 kii weyn. And then today waxaan ka shaqayn doonaa exercise 2.3 and exercise 2.4 and exercise 2.5 haddii ay noo suurta gasho. Exercise 2.3 waxaan ka shaqayn doonaa waa configuring IP address and also we join to the domain oo kan aan sameynay domain controller. Window 10 and window 7 ayaan isku xiri doonaa saan hore u sheegay. And then waxaan samayn doonaa waa creating additional drives C drive ayaan samayn doonaa. Also waxaan samayn doonaa we're adding second network card oo mid baan haysanaa oo system ku jira mid kalaan ku dari doonaa. Aan bilowno hadda intaan bilaabayo waxaan samayn doonaa screenka inoo weyneyn sida normally screenka inoo weyneyn doonaa and this window 10 sidaad arkaysaan and then calaamadaasaan ku dhufan and then waxaan ku qori doonaa passwordkan ku qori doonaa. Marka waxaan sameynayaa hadda waxaan configureyn doonaa configuring IP version 4 address markaan dhammaystiro halkan waa laba topic weeyaan waxaan joint baan samayn doonaa. Marka joint markaan sameynayo waa inaan computerkan PC noo sii furaa kan baa noo sii furi doonaa si aan sii shidmo. PC waxa weeye waa kii aan creatin ahaa domain controller ahaa. Marka halkan markaan tago markaan hadda creatinay network two option baan haystaa halkan baan ka gali karaa halkaasaan ka gali karaa oo right click intaan ku dhufto right click ayaan ka dooran doonaa oo haddaan doonayo waxaan ku qori doonaa control banner labadaba waad samayn kartaa walba sida easy ku ah. Marka hadda waxaan samayn doonaa last time halkan baan ka galnay marka hadda waxaan samayn doonaa control banner ka gali doonaa. Marka IP addresskan ayaan ku qoraya markaas markay shaashadan kusoo baxdo this is the control banner weeyaan kan ku dhamaystirmato waxaan ku dhufan doonaa qaybta networkinga. Markaan network ku dhufto waxaan odhan doonaa network and share ma ku dhufan. Markaan network and share ku dhufto waxaan odhan doonaa change adapter. Okay, kaasaan ku dhufan change adapter. Markaan change adapter ku dhufto marka hadda kan haysano waa kan one waxaan haysanaa one network waan haysanaa next this one mid kalaan create doonaa hadhow tole. Marka kan double click baad siin kartaa ama right click oo properties. Marka halkan hadda saad arkaysaan waxaan haysanaa this is waxa weeye this wuxuu haystaa automatically u haystaa marka innakaan assign waxaan saari doonaa IP address baan siin doonaa iyo domain kii domainkan waan siin doonaa. Property click markaysiisid waxaad ku dhufataa IP version 4 ku dhufo IP version 4 start one and then property ku dhufo ama double click and then halkan innakaan markaa siin doona ku cusub oo waxaan siin doonaa 172 and 16 0 and then 40 baan siin doonaa. Subnet mask kaas 255 aan ku disan doonaa default ma baahin laakiin hadda halkan waxaan siin doonaa sidaan haddaan doonayo inaan isku xiro de domainkii aan creatinay domain haddaan domainka inaan ku xiro domainka kii uu lahaa oo ahaa 172 and 16 10 buu ahaa de domainkan creatinay markaasaan isugu xiro halkaa waxa weeye domainkaad siin kartaa ay ku qoraysaa haddii kale isku xirmi maayo. Domainkan ayaad arkaysaan aan ku tuso kan domainkan aan ku tuso IP addresskiisa. This is the safe manager and this waxaa Windows safe iskale waa ka wax laga maamulo inta badan. Marka waxaan ku dhufan doonaa local safe baan ku dhufan doonaa sida ay tuso IP addresskii hore. Waqti buu qaadanayaa. Marka halkan buu siin doonaa.
haa waa kaas. As you can see waxaa ku qoran tahay 172.16.0.10. This is the one kaas aan siiyey oo halkan ku qoran tahay 172.16.0. markaa next aan odhan, markaa next ila and then close baan odhan doonaa shaashada. And then close aan kan waan iska xidhi doonaa, uma baahni hadda, uma baahni. markaas aan u hubiyo waxaan odhan doonaa halkan waan ku qori doonaa cmd, waxaan ku qori doonaa cmd. marka waxaan odhan doonaa ip config all space calaamadaas all. marka inta baan siin doonaa, marka waxay siin doonaa ip addresskan siinay waa kan saad arkaysaan waa 172.16.0.40 and the subnet mask waa kaas and then the dns is here, the dns ka labadiiba kuwaas. marka waxaan samayn doonaa hadda haddaba waxaan samayn doonaa hadda I will do this joint aan samayn doonaa. halkan waxaan odhan doonaa setting ama waxaan ku qori doonaa about. haddaan about ilaa halkan ma ku dhufan and then marka hadda saad arkaysaan the device namekan haysanaa, magaca haysanaa waa kan desktop name kuwa kaas. magacaasna horta bedeli doonaa, magacaasaan u bedeli doonaa. waxaan ku odhan doonaa rename the pc, halkaasaan ku dhufan magacaan iska bedeli doonaa marka horeysa. marka waxaan u bixin doonaa kan client one sida ku qoran mashiinkeena and then next and then restart. hadda waa inoo soo shidmay saad arkaysaan, halkaasaan ku dhufan. marka halka ku dhufto marka waxaan ku qori doonaa magaca. hadhowtuna markaa magaca aan isku xidho dhamaanka isku xigo magacan aad arkaysaan maxamed aa arki maysaa insha allah. marka hadda passwordkaan ku qorayaa saad arkaysaan and then waxaan eegi doonaa halkan waxaan ku qori doonaa about baan ku qori. marka magaci waan igi bedelay saad arkaysaan, marka magacaan horta eegi doona inuu bedelay. haddaad saad arkaysaan magacii uu bedelay oo waxaa mashiinka la idhaha cl1 client one yaa la idhaha. marka markaan doonayo inaan ku xidho dhammaanka inaan ku xidho waxaan odhan doonaa halkan ma ku dhufan doonaa rename the pc advance. marka halkaan siiyo marka wuxuu weydiin doonaa waxaan odhan doonaa change, halkaasaan ku dhufan doonaa markaan magaca inaan ku xidho doonayo. halkaasaan ku dhuftay aan halkan markaan click siiyo marka waxaan ku qori doonaa magacii baan ku qori doonaa. halkan waxaan doonan doonaa click waxaan siin doonaa kaasaan siin doonaa domaanka and then domaanka namekeena ayaan ku qori doonaa. domaanka namekeena haddaan tago halkan waxaa la idhaha aadan.com ayaa la idhaha. marka waxaan ku qori doonaa aadan.com ku qori doonaa, kaasaan ku qori doonaa aadan.com. aadan.com and then markaan ku dhufto wuxuu weydiin doonaa administrator magacuu weydiin doonaa username and the password and then username and the password waxaan siin doonaa kan usernameka kan baan siin doonaa, kan usernamekiisaan siin doonaa sign it and tuso. waxaan siin doonaa kan baan siin doonaa magacaasaan siin doonaa aadan administrator siin doonaa. okay aadan administrator aadan administrator and then passwordka siin doonta passwordkii ka iyo administratorka wey.
and then marka okay dheh. Marka hadduu naga qaato wuxuu noqon doonaa restart the computer. Haddii kale uu naga diidi oo magacana saxan weeyaan. Waxaan rajeynayaa inuu naga qaataan rajeynaya. Marka uu naga qaatay welcome aadan to, marka hadda wuxuu yidhi welcome to the aadan.com domain. Marka hadda waan isku xidhay labadii. Marka inta idhaa wuxuu odhan doonaa restart your computer. Markaan close idhaa it will start the computer. Restart your computer buu odhan. And then markaan galno kan noo shidmo wuxuu ku gali doonaa, wuxuu ku bilaabmi doonaa halkii maxamed ahayd usernamekeenu hadda wuxuu noqon doonaa administrator noqon doonaa. Waxaan sameynay kan waan sameynay waniga waxaan sameynay hadda ip address waan siinay sidaad aragteen waan siinay. Waxaa kaloo sameynayna domain join domain kanoo xidhnay. Kan waxaan isku dayi doonaa laba exercise 2.4 and 2.5 inaan labadan aan creatiyo ayaan isku dayi doonaa haddii aan inoo suurto gasho. Okay, halkaasaan ku dhufan doonaa. Marka aada baan ku dhufan doonaa halka maxamed baa jirta soo maaha. Marka aada ku dhufto marka waxaan siin doonaa magacii aadan. Waxaan siin doonaa magacii aadan administrator siin doonaa. Admins magacii administrator aadan administrator and then the password kan sii marka dadkii password kan creatinay. Marka enter sii marka enter siisid marka uu naga qaadan insha allah. Hadduu qaadan waayo markaana magac bedelno weeyaan oo ku laabano aadan. As you can see hadda uu qaatay oo wuxuu qaatay as a administrator ayuu qaatay. Marka hadda waxaa isku xidhan hadda waxaa isku xidhan DC1 the client domain controller one and the domain controller one and then CL client control they are way isku xidhan yihiin hadda. Marka hadda way feelalka iyo way sheergalayn karaan kastoo kale way sheergalayn karaan. Marka kan baana maamuli doona kan. Almost is finishing. Haddaan waxaan doonayaa inaan aan eegin isku xidhan yihiin waxaan samayn doonaa waxaan tegi doonaa CMD oo ah command promote and then waxaan isku dayi doonaa inaan kan aan bin iyo inay wada shaqeynayaan saan u eego ma garatay. Waxaan samayn doonaa intaan ku dhufto halkan intaan ku dhufto ayaan odhan doonaa CMD waxaan odhan doonaa CMD and then aan enter baan siin doonaa. Markaan enter siiyo waxaan ku qori doonaa bin 172.16.0.10 numberkan waxa weeye waa key domaanka weeyaan. Marka saad arkaysaan it respond oo waxaan odhan karaa oo kale maad garanaysaa bin intaana ayaan domaanka magaciisaan ku qori doonaa oo odhan doonaa aadan.com. marka okaas aadan.com markaan ku qorana marka openiye marka idniis waxay ku cadaynaysaa inay isku wada xidhan yihiin. igala haddaan ka sameeyana saasuu samayn doonaa. Sidaad kaa ogtihiin marka waxaan samayn doonaa the exercise kan ku dari doono waxa weeye waa creating additional disk ayaan sameynaynaa. Marka how to create additional disk several si kasta loo sameeyaa saddex qaybood baan u samayn karnaa. Waxaan samayn doonaa right click baan siin doonaa the start halkan and then waxaan tegi doonaa disk management oo ah halkaasaan ka tegi karaa waan ka creating karaa halkan baan ka creating karaa saad arkaysaan oo waxaan samayn karaa maad garanaysaa waxaan tegi karaa control baan tegi karaa and then markaan control aan tago markaan control baan tago waxaan tegi karaa maad garanaysaa halkan waxaan ku qoran administrative oo kaas kaamaraan ku dhufto
and then waxaan oran doonaa administrative aan ku dhuftay waxaan tegi doonaa halkan computer manage okay halkan waxaan ku dhuftaa computer management aan ku dhufan markaan computer management ku dhufto haddana disk baan ku dhufan doonaa markaa sii furmo haddana disk management oo halkan marka kan baa ka yar process dheer ka kala dhaama markaan creatinayo waxaan samayn doonaa cs markaan creatinayo the best option I will turn off the machine markaad mashiinka xidhid markaasaan creatin doonaa waxaan ku dari doonaa for view disk drive aan ku dari doonaa aan waxaa kaloo creatin doonaa one additional card markaan creatiyo as you can see this one markaan kan creatiyo kanna waan ku dari doonaa labadan baa mar wala samayn doonaa while mashiinka inoo baktiisan yahay markaa laab halkaasaan kusoo gabagayn doonaa caawa hadda mashiinka inoo baktiyey marka waxaan samayn doonaa waxaan tegi doonaa cm baan tegi doonaa setting baan tegi doonaa or waxaan click baan siin doonaa halkan or I can click halkan baan siin karaa anyway kastaad ku dhufan kartaa let's go labadan already kan waan sameeyey marka ledni waxaan tegi doonaa vm and then I will go setting and then when I go setting waxa ay furma shaashada and then waxaan ku dhufan doonaa waa kaas kamaraan ku dhufto sidaad ogtiin we have mid baan haysanaa hadda marka waxaan odhan doonaa markaan kaa ku dhufto add baan odhan doonaa add markaan add ilaa shaashadan buu siiyey shaashada waxaan ka dooran doonaa kan hadda c ma baahni kaasaan u baahanahay and then waxaan odhan doonaa add and then waxaan ku dayn doonaa defaultaan ku dayn and then waxaan odhan doonaa create baan odhan doonaa marka create markaan idhaa waxay weydiinayaa sizekaan rabo marka sizeka waxaan ka dhigi doonaa 5 aan ka dhigi doonaa 5 gigabit aan ka dhigi doonaa and then waxaan odhan doonaa store kaasaan dooran doonaa store virtual disk and then next and then wuxuu weydiiyey magac buu weydiiyey magacaan u bixin doono waxaan u bixin doonaa desk one baan u bixin and then waxaan odhan doonaa okay and then as you can see it we create and then mid kalaan creatin doonaa waa hadhow talo u baahnaan doonaa oo wax mid kalaan creatin doonaa and then next aa odhan and then next and then create baan odhan and then kanna 5 aan siin doonaaba 5 hadheh and then store in ayaa odhan doonaa and then next and then waxaan u bixin doonaa halkan also disk 2 baan u bixin doonaa okay saasaa loo creatiyaa aan hadda waxaan u baahanahay inaan create saa inii sheegay saad arkaysaan waxaan creatiyaa kawan createy haddana waxaan creatin doonaa kan exercise 2.5 waxaan ku darayaa second card baan ku darayaa networking cardka ah marka waxaan samayn doonaa halkan aan markii hore kan dooranayay hadda waxaan ku dhufan doonaa kan kaarkan saad aragtaan oyster card kaarkan nat mid u baan hadda haystaa marka mid kalaan creatin doonaa markaan kaa doorto waxaan odhan doonaa add and then halkan baan ka dooran doonaa kaarka network adapter and waxaan doonaa finish marka we have two card you see kaarkii hore nagu jiray iyo ku labaad oo both labadu waxay nat bay yihiin marka waxaan doonaa okay and then sidaasaan ku dhamaystiri doonaa aan shido markaa the pc-geena markuu shidmo and then the labka saasaan ku dhamayn doonaa marka wixii any comment ee ku saabsan for labkanaan sameynay iyo laababkii kala sameynay iyo wixii networkingkaan sameeyey inkastoo networkingka qaarkaan sameeyey ay waqtigu dheer yahay because waan explainayay waxaan isku dayi doonaa inaan short ka dhigo laakiin networkana waan dhinacbaan ka samayn doonaa hadda few network baan sameeyey cashiro kale noo dhiman oo networkinga markaas sidaasaan samayn doonaa haddii alla idmo markuu shidmo and then waan eegi doonaa inaan creatiyey the disk and then networking labadaasaan tus doonaa inuu creatiyo okay and then kaasaan ku dhufan doonaa halka hadda maaha maxamed ma aha saad ogtihiin hadda waa aadan administrator kana muxuu yahay same thing marka waan labadaba waan combine hadhow tolo waxaan samayn karaa instead of aadan administrator ka dhigay administrator maan ka dhigi karaa haddaan ku laabto halkan thisda waa clientigeni weyn waa window 10 labadu way isku xidhan yihiin saad ogtihiin
marka waxaan tusi doonaa magacii baan bedelnay aadan com na isku xidhan yihiin marka taa waan tusi doonaa waxaana tusi doonaa laba disk on createeyey iyo one net on network card on createeyey intaaba waan tusi doonaa and then sidaasaan ku dhamaystiri doonaa laabka tun caawa sida arkaysaan shaashadu waa window 10 way noo furantay ka kale waxay kala duwan yihiin ka kale waxaan ku haysanaa window server server manager ku haysanaa laga maamulo laakiin window 10 as a client loogu talagalay oo kuma haysana kaas yay waxaan odhan doonaa halkan settingkan ku dhufan markaan setting ku dhufto marka waxaan odhan doonaa about intaan idhaa ayaan waxaan tegi doonaa waxaan doonayaa inuu tusiyo the machine can create about dad halkan ku arkayn waxaan samayn doonaa settingaan tegi doonaa it's okay sometime aduunaysiina halkan waa kaawisiye marta about aan ku celiya mar labaad waa kan about I click the about baan ku dhufan labada settingna waan tegi karaa saan u ogaado marka I click the about baan ku dhufan and then waxaan tusi doonaa as you can see the name is waxa weeye client one and the full device name waa kan client one aadan.com oo wuxuu ku xidhan yahay oo dhawaankii ku xidhan yahay and then waxaan isticmaalaynaa waa kan 13 generation install for waa kii aan creatinay and the systemkaan isticmaalno waxa weye 64 operating system kaas waa saas weeyaan waxaan doonayaa inaan hadda inato administrative inaan keenato haddana halkan ka gali karo administrative okay waxaan tegi doonaa halkan let me go back to the control band or control band iska dhaaf waxaan odhan doonaa halkan waan ku dhufan doonaa right click and then waxaan disk management this okay easy ways aan ugu tagi karno markaan disk manage ku dhufto marka waxaan arki doonaa diskii aan create aan eegi doonaa marka markuu ina weydiiyo initialize I don't need to initialize now kan next waan kasari doonaa and then let's go see marka kii aan creatinay saad arkaysaan waxaan creatay disk one oo ahaa 5 gigabyte and disk 2 oo 5 gigabyte ahaa both are here right now marka layda cashiro waxaan samayn doonaa aan activate ka dhigi doono labadanba iyo haddaan mid kale ku daraba hadhow tolaba taas waa sidii aan labadii aan noo creatiyey waxaa kaloo tusi doonaa network card waan ku darnay mid card marka halkan baan clicksin right click the network and then waxaan odhan doonaa open the network internet setting marka markii hore midu baan haysanay marka hadda wanigii mid kalan creatiyey markaan hadda halkan joogno waxaan odhan doonaa ku dhufan doonaa network and sharing center marka network and sharing ku dhufto waxaan odhan doonaa change adapter halkaas change adapter and then marka two card baan haysan doonaa marka mid kii hore haysan kan buu ahaa marka wanigii kan ku darnay marka sidaasaan caawa kusoo gabagabayn doonaa laabkeena iyo insha allah laabab kale oo la mid ah labadan baan ayaan isticmaali doonaa oon kalba wax cusub ku dari doonaa maraan hadday noqoto file sharing aan samayno mar hadday noqoto user aan creatino mar hadday waxaan samayn doonaa cashiro badan oo ku xisaa sidan u xisaaran haddii alla naftina ku simo any comment oo any wixii aad youtube-ka halka hoose ayaad igala wadaagi doontaan insha allah waayo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu